kulanti habboon daawadayaal halka aad nagala socotaan waa warbaahintii Chess Media barnaamijkan waxaynu ku soo qaadan doonaa arrimo la yaab leh oo magaalada Hargeysa ka dhacay 20 bisha Oktoobar 2025 oo ahayd subaxnimadkii saaka waayahay arinta la yaab kale waynu falanqayn doonaa 47 qof oo lagu xirxiray arrimo liddi ku ah Somaliland oo waliba qaar kamid ah xukuumadda xilalka haya waayahay qodobada iyo qodobo kale oo ku soo qaadan doona barnaamijkan adiguna aragtidaada commentiga noogu reeb sidoo kale like saaro barnaamijka share gare horta waxaynu ku horeynaynaa magaalada Hargeysa hay-adan oo in badan joogtay waxa ay ka shaqeynaysaa aan warba loo haynba ayaa waxa lagu war helay iyadoo abaabulaysa dad fara badan oo doonaysa in ay barnaamij ku qabato magaalada Hargeysa barnaamijkaas oo ka hadlaya dastuurka Soomaaliya iyo falanqayntiisa waa dastuurkii Soomaaliya oo lagu falanqeynayo Hargeysa dhexdeeda iyadoo xaflado loogu qabanayo bal haddaba maxaa ka dhacay magaalada Hargeysa 47 qof sida ay warbaahintii ugu horeysay soo gelisay Rakaal TV bay ahayd sida ay sheegeen 47 qof ayaa lagu qabqabtay oo la xirxiray 47 ka qof 12 kamid ah waa jahani halka ay 35 kale ay yihiin reer Somaliland oo badidoodu Hargeysa u dhasheen waxa hadaba taa ka siiya badanba waxa ku jira rag xilal dawladda ka haya oo aan wali magacyadooda cidina la wadaagin xilalka ay hayaan iyo magacyadooda cidina lama wadaagin balse waxa la sheegay in ay ragaasi Somaliland xilal ka hayaan ujeedada iyo hadafka hay-adani ay leedahay maxay ahayd hay-adda waxaan abaabulaysa magaceeda consultancy baa la yiraahaa magaca consultancy waa la talin weeyaan maxay inagala talinaysaa dastuurka Soomaaliya balse intee in leeg bay Somaliland dhexdeeda joogtay hore miyaan looga warhayn arrimaha ay ka shaqeyso marka hore in ay Somaliland taabacsato aqoonsan tahay iyo inaanay Somaliland aqoonsanaynba miyaan la kala ogeyn ugu horeyn hay-adaha ama NGO-yada iyo waxyaabaha noocan oo kala ee Somaliland gudaheeda ka hawlgala iyagoo ku soo dhuumanaya waxyaabo ay ka taageerayaan Somaliland haddana muhiimaddu waxay tahay wasaaradaha ku shaqada leh meenay dabagal ku sameyn iyo ciidamada sirdoonka waxa ay ka shaqeyso iyo waxa aaminsan tahay markay consultancy ay soo dhigtay barnaamijkan iminka aynu isla soo hadal qaadnay oo ah inay Hargeysa ku qaban doonto bandhig buugga dastuurka Soomaaliya maxay ka dhigan tahay markii horeba inaynu Soomaaliya kamid ahayn mar hadii xubnihii dawladda xilalka ka hayay ay consultancy iyagoo u shaqeynaya ay doonayeen inay Hargeysa si aanay cidna gabasho lahayn ay ugu soo bandhigaan dastuurka Soomaaliya ujeedada iyo hadafka laga lahaa maxay tahay hadeer waxa jirta xukuumadda inay arrimaha hoos u dhigtay oo dadka la xirxiray waxoogaga warbaahintu ka soo dhiigatay mooyaane aan war saxa wali laga hay Soomaaliya waxa weeye sida ay ku socoto mar haday cayn ka tahay dii waa lagu kala horeynayaa malaayo marba in baa qabanaysa waana waxaan hore uga dhicin Somaliland waxa iigu dambeysay anigu Somaliland iyadoo qofka gacanteeda buluuga lagu arko xitaa la xiro maxaa lagu diidan yahay kuwii markaa waa yeeshay toolo lagu xirxirayay ee aan mas'uuliyiinta ba ahayn arrimaha noocaasna waxa kalifaya qodobkii wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya lagu saxeexay ee ahaa isdhexgalka bulshada waxa kale oo arrinta inta inoo dheer markay maanta kuwii dawladda ka shaqeynay dastuurkii Soomaaliya soo bandhigeen maxay ka dhigan tahay marka dadkii yaa haray weeye meeshan horta kulli nin siyaasi waxay la tahay isagu sidoo doono waa u dhaqmaa laakiin dadka aragtida ka midaysan reer Somaliland ee aan iyagu siyaasiyiinta ahayn ee maxaa sheegay Somaliland halkan soo gaarsiiyay ee jiritaankeeda ku xisaabtama ayaa waxay la tahay ay ku dhisan tahay magaca Somaliland wuxuu ku dhisan yahay arrinta nin kasta oo siyaasiya maalinta ama xil laga dajiyo ama wadadii uu doonayay laga leexdo sidoo kale dastuurka Soomaaliya dhexdeena
ka abaabulaya inuu soo bandhigo arrintaa weli wax faahfaahina dowladdu imika weli kamay bixin. waxaa kaloo iyaduna jirta Somaliland dadkii qurba joogta ahaa ee baasaboorka ajnabiga sitay baasaboorka ajnabiga waxaa jirta jidad badan oo ay ku xaniban yihiin oo ay kamid yahay Imaaraadka Carabta sidaan wada ognahay waxaa jiray dad fara badan oo lagu xidhay e-visa la yiri xamar ka dalbada si online ah ka bacdi qaar lacagtii laga shubtay oo waliba nabadgeliye la yiri. Imaaraadka Carabtu waa dhulkii wasaaradda arrimaha gudaha ay ugu rajo gelinaysay inay yihiin dadka ugu horeeya ee ina aqbalay ee baasaboorkeena lagu tagi karo ee ogolaaday. laakiin maanta waxa shaaca ka cadaatay Imaaraadka Carabta in airportkoodii laga dhoofi kari waayay oo Somaliland ka soo dhoofi kari weyday oo lagu xukumay inay fiisa ka dalbadaan xamar. waxa markaa kuugu xigi doonta ka diblomaasiga sita wasiirkaaga arrimaha dibadda la oranayo marka la doono e-visa dalbo. waxay taas cadeyn u tahay Somaliland in aanay weli tallaabo cad oo la qaado dhinaca hawada aanay waxba kaga qaban. arrimaha dadka aan rajada gelinayn bay kamid tahay inuu qofkii wadankiisa si xor ah ku iman kari waayo. waxa taa canaan kule wasaaradda arrimaha gudaha duulistiya hawada wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda duulistiya hawada oo aad moodo in ay ka gaabisay shaqooyinkeedii. ayaa ku eedeysan arrimaha dibadda iyo duulistiya hawadu waxa marka horeba shaqadoodu ay tahay isku xirka dadka inaga maqan ama ganacsatada ha noqoto ama dadka Dubai ka soo maraya inay wado u sameeyaan oo aanay xamar waxba kaga xirmin. sidoo kale waxaa jira isagana markaba ina Omar leeyahay oo muddo halkan taagnaa oo dad badan si qabiilaysan uga hadlayay. marka hore horta deetani Somaliland noqonaysa hadii odayga ugu weyn uu yiraaho ina keen adeerka u ahaaba la cashuurayaa haddii inta saacada gudaheed lagu sii deyn waayo wixii ka dhaca shaqo kumari. marka waxa weeye qabiilkiinu dekada samaystay weeye tan Somaliland baa laga xukumaay oo wixii soo galana waa laga cashuura. aniga cashuur laygama dhaaf YouTube kan idin kala hadlaya way cashuur laygama dhaafade waana ogolahay. hudheelka aan ka qadaynayo waa laygu cashuuraa cashuurtiisa waa layga qaadaa. marka qadada cuno cashuur baa la socota wanuga ku shubashada mobilka aan ku shubanayo cashuur baa la socota wanuga leerka aan bixiyo cashuur baa la socota wanuga. wax allaale waxaan oran karo dawladdu way igu qabataa oo adeega joogtada ah ama asaasiga ah ee bulshadu u baahan tahayna ma garanayo. ammaanka caafimaadka waxbarashada biyaha inta lacagteeda ku iibsada haddana waxaan ogolahay in cashuur bixiyo ahaado. ninkii ugu tijaarsanaa haddii maanta uu 7 casho markabkiisu taagnaa halkaas oo cashuur dhaaf u taagnaa dee adeero Somaliland markaa weeye masalaan iyo kala taga baynu nidhaahnaa. taa waxaan oranayaa sida qabiilaysan ee cashuuraadka uga hadlaysaan ka daayay oo waliba ragga waaweyn ma la hadlaya. dhalinyarada waana la xidhaa waana xishoodan laakiin ragga waaweyn xishoonna maayaan. sababta dawladdu kaga dhowrsanaysaa waxa weeye marka nin suldaana ama caaqila ama ganacsada la xidho waxa la ogyahay beel iska dhan waan hadda waxba ku qabinba inay hurdada ka toosto oo la xamaasadeeyo oo uu dalkii iminka maanta ganacsato awoodiiba leedahay iyo sulaadeen. waxaynu doonaynaa horumar iyo inaynu dhaafno maanta halkaa balse laakiin waxaad moodaa iminka inay dadkii ugu waaweynaa dib inoola socdaanba oo dal shakhsi aad moodo dastuurka dalka in ama sharciga dalka inuu qof gacantiisa ku qaadanayo oo dan shakhsi isagoo wada. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay maca salaama. aragtidiina commentiga noogu reeba share gareeyo subscribe ta hayga ilaawi.